وانين أي رادينيان هاجدها سردونك يا دونك ugu awooda badan sida sirdoonka Yuhuudda ee Mossad iyo sirdoonada kale ee Mareykanka wuxuu ku jiraa ragga ay sirdoonka Yuhuudda ugu baadi doonka badan yihiin waxaanay dadka reer Falastiin u yaqaanaan halyay qaran xagga Yuhuudda ku ducaystaan inuu marun dhinto sidoo kale waxay ula bixeen magacyo fara badan oo dhammaantood geeri iyo baqdin isugu soo ururaya ninkan aynu ka hadlaynaa waa nin Falastiini laguna magacaabo Mohamed Tayyib Ibrahim al-Masri laguna naaniso Mohamed Deef wuxuu dhashay hilaadii sanadii 1965 wuxuuna ka dhashay qoys qaxoontiya oo ay Yuhuuddu ka soo qaxisay tuulo la yiraahdo Qubayda waxaanay deegaan ka dhigteen koonfurta Gaza wuxuuna shaqo bilaabay dadiisa oo yar si uu u kaabo nolosha qoyskooda laakiin iminka wuxuu yahay hogaamiyaha iyo xubinta ugu firfircoon garabka hubaysan ee Hamas laguna magacaabo al-Ghazam wax sawira amaba muuqaal lagama hayo dadka wajigiisa yaqaanaana waa dad kooban waxay ciidamada Yuhuudda iyo sirdoonkooduba ku bixiyaan malaayiin lacag sidii ay u heli lahaayeen xoga ku saabsan Mohamed Deef waxay gumaysiga Israa'iil isku dayeen inay khaarijiyaan dhowr mar laakiin way u suurtagali weyday waxaana caqabad ku noqotay wajigiisa oo aan si saxan loo aqoon waxay dhalinyarta reer Falastiin marka ay banaan baxayaan ku dhawaaqaan waxaanu nahay ciidamada Mohamed Deef taas oo ciidamada gumaysiga ku noqotay boqo iyo kacadaysi markay u dulqaadan waayeen waxay bilaabeen inay xidhaan qofkay ku maqlaan magaciisa waxaanay sirdoonka gumaysigu u ballan qaadeen qofka u keena muuqaal ama sawiro uu ka muuqdo inay malaayiin dollar siin doonaan laakiin dhowr qof oo isku dayay ayaa la dilay haddana waxay gumaysiga Israa'iil xidhan sanadii 1989 wuxuuna xidhnaa sanad iyo 6 bilood waxaanay gumaysiga Israa'iil ku haysteen inuu xiriir la leeyahay ururka Hamas waxaana isku beegmay aasaaska garabka hubaysan ee al-Ghazam ee Hamas iyo jeelkii uu ka soo baxay wuxuuna u wareegay daanta galbeed halkaasi oo uu ka aasaasay koox kale oo hubaysan oo raacsan al-Ghazam markii la dilay Cimaad al-Qawl ayuu noqday hoggaan sare oo ka tirsan Hamas sanadii 1993 wuxuu hogaamiyay howlgallo ka dhana Israa'iil oo ay ku jirto qafaalashadii askarigii Israa'iil laakiin markii la dilay Yaxya Cayaas ahaana hogaamiyihii ugu awooda badnaa garabka al-Ghazam wuxuu abaabulay howlgallo lagu laayay kontoneeyo Yuhuuda sanadii 2000 waxa xidhay xukuumadda Falastiin laakiin wuu ka baxsaday laakiin waxa Yuhuuddi isku dayeen inay dilaan 5 jeer taasi oo ay ku guul daraysteen waxay sirdoonka gumaystuhu sheegeen inuu ilbiriqsiyo kaga baxsaday markii uu gaari uu saarnan yahay la duqeeyay hilaadii 2014 weerarkii lagu soo qaaday Deef waxa uu ku waayay qaar ka mid ah qoyskiisa markii ay diyaarad gantaal ku garaacday gurigiisa sirdoonka Yuhuuddu kamay caajisin dilkiisa waxaana sirdoonka Israa'iil caqabad ku noqotay sawiradiisa waxa ay adeegsataa sawirro hore oo markuu xidhnaa ahna kuwan hortiina ka muuqda laakiin waxa la yaabka lahi waa inay midhar ka mid ah Falastiiniyuuntu isku dayayaan inay xogtiisa u gudbiyaan marun Israa'iiliyiinta si ay ugu bedeshaan dhiigiisa shilimaad yar